Soomaaliyeed wuxuu waxaan maaragtay haysta caruur iyo xaas waxaan maaragtay nafta kala dhamaado waxaan kulay dhamaayay inaan gabadh u sheekaysto على هذا هذا كبار ولا الصوماليين إلى الصوماليين ويان وفي عهود يحاسب بين هاي وعيدي وحن معي كمان ما عمش يخسه حقيق ما نقول في المكاسي لكن هذا كده ما بالعمل ما في هذا كده بالعمل أياس لما كده وحلاش كمان عيدي أقول سهوا بعد نحل عين وحلاش إلى من قبل ما عرفتي وحقول جدعي حالك أنا ما عرفت عشان خاسي وكنت بدي فلوس لقات وأنا بدي في بجاري ما خاسي أنا وخلاف هذه هاي أيام ما عرفت وضع في وضعفي وأسبوع عشان أوجد كدبنا حناتي أي قبل وحيكون على معصي وحي ما عرفتي وتكتي إنا عن قرارنا هاي إيه لا تشبه من هاي ساحين ثم أنا أعلم هاي أي ما عرفتي والله في سميسي إلهي سبحانه وتعالى إما أيوب ما عرفتي خفيبي markiiba waa soo noqday waxay ii sheegtay uur leedahay ilmihii ma habeenkaasi waxaa loo galay maalintaasi waqtiga ilaa tibada jiro maanta wuxuu ii yaqaanaa aabo waxaanu ahay aabo caruurtayda waxaa haysaa lix kale toddoba ayuu igu yahay kalgacal iyo wanaag waa naga dhexeeya anigu waa leeyahay xaqiiqada waxaase diidaya haddaan maanta caruurtii aan dhiig qaado DNA وأنا بيجي هالكاسي أبلا عنده وأقدر أدعي على الشمال كاسي أي عيب كاسي أي صوب حلو وحقادي حقيقي بغلس حتى أنا دين عقل بسيم حي حتى أنا أيقو ما عرفتي وحلا قريب ونكلا دلي وخلص مجيئة أنا ويدو عرفت المكتب هذا المدرسة اللي هاي بيجري المدح خير رضا الله يشفي ما شاء الله من ورجين وحكم برابي وشعب غني ونغرباه شعب غني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عدك والله مغلا إن شاء الله صمع انت كبعدي كنتي قبل سؤاشنا وديسي أما تلادنا وديسي haddaanu si kooban uga jawaabno maadaama tilmaantay waqtigu yar yahay marka u horeyso waxa laga maarmaan ah gabadha muslimada ah ama ninka muslimka ah inuu og yahay ama gabadha muslimada inuu ogeysiiyo horta gabadhu ninku hadduu naa kala guursanayo ama xaas kala guursanayo xaqeedu intee leeyahay inay ka hadasho ama kala taliso ama u diido ama u fasaxdo xaq miya u leedahay waxyaalaha noocaas oo kale in la cadeeyo fiican intaan la gudbin sida aynu diinta ka aragno gabadha xaq lama siinin inay ninkeeda yaani ama u diido ama u ogolaato inuu naa kala guursado sidoo kale gabadhu xaq uma leh ninku inuu gabadhiisa ama xaaskiisa ogeysiiyo oo dhaho waan guursanaya xaq ahaan uma leh ama haddii la leeyahay xoogaa in la iskala tashada fiican taas wax gaar ah weeyaan laakiin marka xaq fiirinayno gabadha muslimada ahi ninkeeda inay u diido ama ay ogolaato naa kale inuu guursado xaq uma laha ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu barnayo weeyaan haddii uu markaas awoodeeda leeyahay oo shuruudihii loogu talagalay ka soo baxay waxba inuu kala tashado maaha gabadha haddii ninku guursadana gabadhu xaq uma laha inay ka doodo gabadha damba loo guursaday in la furo iyo wixii la mid ah horta xaq uma leh ogaado waa laga maarmaan arrinka isaga ahi xaqa in la cadeeyana waa laga maarmaan weeye gabdhaha muslimaadka ahi waxa arkaysaa inta badan iyo ka doodayo oo leh anu ninkayga uma ogoli inuu naa kala guursado marka horeysa waxa ka horeysa inaad ogolaato inaad diido horta xaq ma u leedahay in arrinka la cadeeyo laga maarmaan weeyaan ninku hadduu haween labaad guursado maantay iyadii hore u joogtay iyo gabadhan timi isku xuquuq weeyaan isku xuquuq balay waa xaas iyo xaas weeyaan in arrinka dumarku fahmaan laga maarmaan weeyaan ama haddii la leeyahay ninku gabadha ma kala tashan karaa si ay niyada u jabin oo kale waa wax ma taqaan laga wada hadli karo way laakiin xaqqa xuquuqda gabadha lagu yaani la qabay ninkeeda inay u diido naaka inay guurso xaq ma u leedahay mise ma laha arrinka horta dumarkan ogaadaan weeyaan
haddii loo cadeeyo gabadhaas marka hore loo cadeyn lahaa inay xaqeeda ahayn arrinka isagaana waxaa laga yaabaa inaan dhibta damba dhici lahayn. haddaan usoo gudbo ilmaha gadaal ka yimi oo dhashay oo yacni aabbaha kale u dhalay, waxa weeye axkaamta islaamku waxay dejisay wax la yiraahdo ninka haddii gogoshiisa ilma ku dhasho wiilkaas ama ilmaha dhashay waxaa la raacsiinayaa ninkii gogosha iska lahaa. waa haddii haweenta uu nin qabay, haween nin qabay baa uur qaaday, uur nin kale qaaday, ilmaha isagaahi waxa waladul furaashka waxa loo yaqaan weeyaan, oo waxaa la raacsiinayaa ninkii gabadha qabay ayaa ilmaha la raacsiinaya. hadday gabadhu galoof ahayd, galoof waxaan ka wadaa inan bay ahayd maalan kaba soo qaatay, ama garoob bay ahayd oo lama qabin way madax banaaneed, uur bay yeelatay, ilmaha iyadahay waxaa la raacsiiyaa ninkii markaas uurka u yeelay. ama haddii gabadha la qabasaan sheegay, ilmahaasi ninka gabadha qaba ayuu raacaya. oo hadda ninkan isaga ah oo su-aal soo jeediyay, ilmahaasi gogosha ayuu raacaya. axkaam badan baa walaalow ka dhalanaysa inaa arrinkaas sheegto laga maarmaan weeyaan. waxaa ka mid ah dhaxal baa ka mid ah. ilmaha adiga dhaxal kuguma le, wiilkaagi maaha. caawa haddii qoortu kuu laamato aad dhimato, ilmihii dhaxal buu usoo fadhiisanaya, dhaxalna kuguma leh. si marka arrintaas meesha uga baxdo laga maarmaan waa inaa caddayso, ama isaga u sheeg oo tiraahdo anugu ilmahaygii ka mid maahid, ilmaha aniga salbigayga ahay ka mid maahid. inuu arrinkaa caddeeya laga maarmaan weeyaan. gabadhuna ilmaha dhashana inay u caddayso wiilkaas si biri aanu dhaxal ugu imaanin laga maarmaan weeyaan. marka kollay intaasaa mooda axkaam inay ka suurtoobayso. ama dadka u sheegaa ama waan qariyaa waa mawduuc kale weeyaan. diinta islaamkuna ma ictibaarinayso maalan gabadhan uur bay yeelatay, ilmaha isagu male waa la ogyahay, la oran maayo DNA waxaa la fiiriyo, maadaama ilmahan waladu furaash yahay adaa marba lagu raacsiinayaa. marka saasaan insha allahu tacaala kusoo gabagabeynaya. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waclam. jazakum allah khayr wasalaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.